waayahay waa yaaban tahay arrinkan isma lahayn mar kale ayaa u soo fariisan doontaa anigu sideedaba waa la isqabtay waan aqaanaa waa la kala dhamaaday waan aqaanaa midda hadda halkan aan u fadhiyo midaan ku fikiray inaan u soo fariisan doono ma yanahayn balse waxaa jira wax aan laga aamusi karin yani waxaa jira wax u baahan in aad ka hadasho oo aan laga aamusi karin so sheekadan way ku leedahay in aan ka hadlo xilligan hadda la taagan yahay waayo dhammaad bay yeelan weyse sidaa darteed sheekadan ka hadlitaankeeda laba qodob ayaan u dhigayaa kuma dheeraanayo laba qodob ayaan u kala dhigayaa qodobka koowaad way arrinkan uusan u lahayn dhammaad way arrinkan uusan u lahayn dhammaad gabadha aan kala tagnay iyo aniga sanad iyo bar ka hor weliba si qurux badan aynu ku kala tagnay intaa kadibna anigii iyo iyadiba aanan meel soo fariisan aanan arrinkaa ka hadlin way uusan dhammaad u lahayn marnaba qodobka labaad aniga muxuu saameyn igu leeyahay yani muxuu aniga dhibaato igu leeyahay the rest of my life haddayan joojin in ay ka hadlaan muxuu aniga saameyn ama dhibaato igu leeyahay labada qodob aan kala dhigi doonaa qodobka koowaad aan ku hormaro haddaan ku hormaro Soomaali oo dhan way og tahay aniga markii gabadha aan kala tagnay nuucaan u hadlay ama waxaan ku hadlay yani waxaa jiro dhalinyaro fara badan oo social media caanka ah oo guri samaystay calafkooda markuu dhamaadayna aan waxba isku reeban sharaftii caadadii diintii dhaqankii Soomaali lagu yaqaanay ka talaabsaday oo aan waxba isku reeban ee isbahdilay ee iscaayay balse anigu waan ka duwanaa Soomaali oo dhan qaab ay ku qanacday ayaan u hadlay intaan soo fariistay inaan soo fariisto hortiina oo aan nimco iyo farxad aan ku jiro iyo reen iyo jawi qurux badan oo aniga familkayga aan idin la wadaago taas waxaan u arkaa normal caadi baan u arkaa laakiin aniga ahaanteyda caadi uma arko haddii ay dhacdo problem familkayga ku saabsan inaan intaan soo fariisto aan falanqeeyo amaba aan ka hadlo wax kasta oo dhaco taas ani ahaanteyda teyda markaan ka hadlo in ay xal tahay ama ay qurux badan tahay lama aha so markii waqtigii sheekada taagneed laga tagay ayaan waxaan yaabay still dad dumar iyo rag ba leh oo aan ah oo aniga weli igu naxsan oo aniga weli ijaafadeyda ceebahayga dhibaatadeyda raadinaya waxaan isweydiiyey waa maxay dambigan aad gashay sheekadan dhammaad u lahayn yani nafteeda waxaan weydiiyey weligeed ayaa la isguursan jiray oo la kala tegi jiray yani aniga muqdishoan ka soo jeedaa deegaan ahaan aan ku soo koray ku soo barbaaray dhaqan ahaan waxaan arki jirnay gabdhaheena inta la guursado ragga gabdhaheena noo fura inaan kubad isla ciyaarno gurigeena intay yimaadaan aan ka wada cunteeno masaajidka aan ku wada tukano yani noocaas aan arki jiray midda aan ka yaabay waxay tahay arrin sanad iyo bar ka hor dhamaatay inaan mar kastaba arko in aniga weli lay daba socdo dhibaatadeeda lagu raadinayo ceebahayga lagu raadinayo waalidkay lagu aflagaadeynayo yani always waan la yaabi jiray haddana waan ka aamusi jiray yani go-aanka aan qaatay maalinta aan ka hadlayay ayaan anigu ku taagnaa go-aankaasaan ku taagnaa si kastay u hadlaanna go-aankaygu wuxuu ahaa marnaba inaan bedelin oo aan intaan soo fariisto guri ii dhisnaa aanan ka hadlin caadadaasna maaha caado aan leeyahay mid lagu soo koriyaan dhaqan u leenahayna ma aha guriga aniga aan ka soo jeedo dhalasho ahaan so su-aashaan qabo waxay tahay ma waxaa jira wax kale oo aniga aan geystay wax kale oo aan anigu geystay miyaa jira oo reerkaa sharafta leh dadka ka soo jeeda ay iiga dhammaan la'yihiin hadda ka hor waxaa jirtay aaladan tiktok la yiraahdo markay soo baxday dhalinyaro ka mid ah beesha sharafta leh ee daarood inaan meesha isku qabsanay waayo aalada tiktok gameka lagu magacaabo waxayna isku kaaya keentay annaga oo ciyaalka xaafadda ah oo youtubera iyo fanaaniin iyo waxa iyo ragii siyaasadda ka hadli jiray daayir cali sow kabtan ayuub shiino colay adiga dadka siyaasadda ka hadli jiray ee ciyaalka xaafadda ayuu bahalka tiktok la yiraahdo isku kaaya keenay so waxa dhacday meesha in lagu wada dhiiqeysto rag ka soo jeeda beesha daarood ee sharafta leh in aan isku dhacnaan siyara qabsanay waan soo fariisto waxaan iri waxaan arkaa dad fara badan oo doonaya in ay u hubiyaan
cimaamad ay ku qoran tahay CK wuxuu necab yahay beesha daarood soo sidaa awgeed waxaan iri laga bilaabo maanta xitaa lagama yaabo qof ka soo jeeda beesha TikTok dhexdiisa in aan ku jafo amaba aynu isku qabsano waayo waxaan arkaa in la doonayo in aniga liihuwiyo ama magac la raaciyo ah in anigu aan daarood nacabahay waliba habeenka markaan ka hadlayay cimaamad ayaan saaro waxaan iri aniga weligii ma oran daarood waa nacabahay hadda ayaana leeyahay I love daarood we love daarood marka xashalillahi nin TikTok inta soo fariistay ay dad oo caayaan ku noqday mihi anigu waxaan ahay YouTuber bulshada u dhaxeeya magacan CK waxa ku jira dad far badan oo daarood ah so there is no way aan ku nici karo anigu waxaan ahay nin business sameeya ummadoo dhan u baahan so there is no way aan beel dhan oo sharaf leh ayagoon waxba ii geysan aan ku nici karo yani there is no way ma jirtaba maalinta wixii ka dambeeyay waxaan islahaa bal arinkan nacaybka dhanka ka taagan dadkaas ee adiga inay ku daba socdaan ee ijaafadaada u raadinayaan war xitaa commentleyda anigu waan aqaanaa anigu waxaan ahay nin social media muddo ku jiray lahjadaha ay Soomaalidu ku hadasho si wanaagsan baan u garanayaa haday comment ahaan lahayd iyo haday ahaan lahayd shakhsiyaad toos ugu soo fariistaba yani dhamaad ayay yeelan weysay nacaybka ka dhan aniga dhankayga soo midda isweydiiyay waxay tahay what is going on why arinkan uusan dhamaad u lahayn waxaan isweydiiyay dadkan ma waxay iska dhaadhiciyeen yani shakhsiyaadkii aad isku dhex qabateen TikTok ayay waxay ka dhex arkeen nacayb in aan u qabo beesha sharafta leh ee daarood hadii ay tahay horaan u sheegay aniga horaan live inta u soo galay TikTok-geyga ayaa waxaan ku iri war anigu nin business sameeyaan ah qof aan kala tagnay oo hooyada daarood ahayd iyo niman dhalinyaro oo caanan isqabsanay beel dhan oo sharaf leh oo cid kastaba laga helayo there is no way aan u nici karo so maalinta aan cimaamada arinka ka dhiibay waxaan islahaa arinka halkan ku ekaan doonaa kumu ekaanin aniga oon ka hadlaynin aniga oo dad iyaga kamid ah aan ishaysanin aniga oo siyaasad ka hadlaynin aniga wasiir ahayn aniga oo xildhibaan ahayn oo wiilkii maskiinka ah YouTuberka ah ayaan waxaan arkayay in uusan arinka dhamaad lahayn nacaybka ka dhanka ah aniga dhankayga iyo daba socodka iyo daba socdaan Hargeysa show u tagay waxaa dhacday in la iga soo sameeyay video nin ajnabi ah oo Asian dhanka Pakistan iyo Hindi wuxuu ahaa ma aqaanay in rag daarood aan inta isku tageen ay iga soo sameeyeen ninka galmoonayay ee ajnabiga ahaa in aniga aan ah oo Telegramka lagu sameeyay ilaahay muxuu ogaa iyaga nin kamid ah inuu ii soo diro videogi originalka intaan Telegramka laga saarin still waa yaabanahay war waa maxay nacaybkana istaaga lahayn maxaa dadkan ku daba dhigay ee ku daba socdaan yani waxa ay ii reebteen male dhan kasta waxay isku dayayeen inay aniga igu ijaafeeyaan i xanuujiyaan i dhibaateeyaan yani markasta waan yaabay oo nafteeda waxaan weydiinayay why arinkan uu wali u socdaa nacaybka ka dhanka ah dadka waan yaabay meelaan u qaadan garan waay Soomaalida waxay tiraahdaa gaalka dil gartiisana si yani anigu ma ihinin siyaasad ka hadla war xitaa heer waxaan gaaray markaan reaction bixinayo heer waxaan gaaray aan ka fiirsadaan iraado niyo qofkan intaadan la kaftamin bal iska fiiri daarood wax ma u galeen yani heerkaas in aan gaaro inta anigoo ka ordaya beesha sharafta leh in la iga dhigo in aan nacbahay yani waxaan u sameeynin male dadka hortooda intaan soo fariistay waan iri war laba qof oo beesha sharafta leh matala ama yiraahdo waa matalnaa oo aan shakhsi to shakhsi isugu dhacnay ma aha in la iga dhigo inaan beesha nacbahay afkaygana laga ma hayo beesha sharafta leh ee daarood anoo weligii u gafay ama caayay hadda ayaana leeyahay I love daarood baa iri war walaalayaal inta wax ka dambeeyo oo aan dhaho wanaaga miyaa jira waa maya haddaba way arinkan uusan dhamaad u lahayn anigu hadda ayaa idin leeyahay laba qof oo cabtooy ah oo gasa cabiirka ah iyo dhalada qamriga ah ku fikir ah oo xigmadooda iyo aqligooda iyo jiritaankooduba uu yahay gasa cabiirka ah iyo dhalada qamriga ah oo intay live-ka soo galin ay cabayaan sida xayawaankan oo kale YouTube-ka ka kacisayna soo lagu damanayo lagama yaabo inaan u naco beel dhan oo sharaf leh oo islaam ah oo cid kasta laga helayo xayawaankan oo kale ah lagama yaabo in aan u naco cugdad aan ay ii gasho beesha
علشان كانوا كلا كسو جيدا أنا كانوا كلا مركا عركو قبيل كيسا إجريتان كيسا بوحان كدقا انتو سلايف كسو قلين قسا عبيركو عبايو إيقالا قمرقا وايو كان هبيننا وحو عايا باشا وكسو جيدو هبيننا وو أمانا وحا حالا ياهو وبير يا قمري ما أهان شخصي كانوا كلانا اسكمدا دعينيو باشا شرفت لي أيو متلا مدة aan la yaabanahay waxay tahay what about the comments comment ku dhiglayaashana ma qamri baacan maya waa maya soo midda isweydiiyay waxay tahay war way uusan arinkan dhamaad u lahayn ka listiisa sanad iyo bar ayaa ka soo wareegsatay saqiirka ma dilin dhibaato kale u maadan geysan wasiir iyo xildhibaan intaad noqotay kumaad adkeen dadka soo jeeday sharafta leh hadda ayaana leeyahay anigu waan jeclahay daarood beel weyn oo sharaf leh oo islaam ah oo aniga magacan aan leeyahay xitaa qayb ka ah oo subscribe ii saara oo idaawada sideen ku nici karaa ma nici karo haddaba maxay tahay sanad iyo bar ka hor arin ahaa wuxuu stiil dhamaad u lahayn taa calaamad su'aal ayaan dul saaray gaalka dil gartiisana si يعني مدان لا يابay weeyaan mid hadda aniga aan calaamad su'aal arinka uga dhigayo يعني waxa reebateen ma leh wax aad reebateen oo aniga dhankayga ah oo aad isleedihiin ninka ku dhibaatay ma jiro wax aydan ka hadlin ma leh hooyaday macaan Allah u naxariistay oo meetiya maydan dhaafin يعني waxaad dhaafteen oo aniga dhankayga ma leh waa maxay cuqdadan baas aad ii qabtaan oo aydan iiga hareynin waa su'aal muhiim ah aniga waxba iima geysanayso haddaad maalin kasta iga hadashaan iyo inta noloshayda ka dhiman waayo aniga nin rag baan u ahay in layga hadlo talabaad aniga anaaba caan ah maalintan caan noqonayay ayaan waxaan ugu talagalay in aniga layga hadlo wixii la doonana la yiraahdo yacni laba waan ku tashanayay maalinta caan noqday in lay amaano in lay caayo balse waxyaabaha i dhiba ayaa waxa ka mid ah in bahasha anigu iga soo tagto ay familkayga timaado hooyaday macaan oo dhimatay Allah u naxariistay in maalin ilaahay kana lagu dhagnaado rag iyo dumarba taasna waa cibrun ahaanti mararka qaar anoo li caaynayo li aflagaadenayo ayaan ku salaa waayo waxaan arkaa nin rag oo ka sheekeynaya ama ku dhagan nin kale xubintiisa taranka war walaalow adigu qaniis miyaa tahay sidee uga hadli kartaa nin kale oo rag ah xubintiisa taranka mid kale war raganimada sidaan ku ogeyn miyaa wax laga bedelay raganimada sidaynu ku ogeyn miyaa wax laga bedelay nin rag waxaynu u naqaanaa annaga ninka markuu guursado gabadhiisa meel kasta ay kala soo muuqanayso asturnaan iyo xishood u ka muuqdo CK-na markuu guriga u dhisnaa Soomaaliya oo dhan way ogtahay kin CK gurigiisa markuu dhisnaa qaabku ahaa so qodobka inta ayaan uga baxayaa oo calaamad su'aalka ayaan dul saarayaa anigoo leh why arinkan uusan dhamaad u lahayn why arinkan uusan dhamaad u lahayn calaamad su'aalkaasaan dul saarayaa intaan ka bixin waxaa jirta hadda ninkii Shiino Culay cod laga wadwado meelaha oo aan arkay arinku ka hadlayna qofku ka hadlay dabcan wuxuu lahaa Jarmal buu joogaa something like that anigu Jarmal ma degani mid koowaad talabaadna aniga markii aan gabadha wada joognay wax la yiraahdo game TikTok maba jirinba wax la yiraahdo live game ee TikTok maba jirinba gabi ahaan gaalka xitaa soo ma sameyn arinkana wuxuu aniga shaqo igu leeyahay haba yaraatee ma jirto balse waxaanu aragnaa in still dad kamid ah dadka beesha sharafta leh ay arinkan dhanka u rugayaan because they love so much in ay aniga iyo arinka sanad iyo bar ka hor ahaa ay ka hadlaan waa sababta hadda aan u leeyahay war arinkan miyuusan dhamaad lahayn why aad obsess igu tihiin why waxaan dareemay inay aad u jecel yihiin ka hadlista arinkan ah gabadha hooyadeed ay ahayd beesha sharafta leh ee daarood eenu sida sharafta leh ku kala tagnay why still ay uga hadlayaan arinka ay aniga u doonayaan inay ugu ijaafeeyaan why calaamad su'aal baan dul saaray why arinka uusan dhamaad u lahayn calaamad su'aal waana ka tagayaa qodobka labaad haddii arinkan uu sii socdo aniga muxuu dhibaato ii geysan karaa haddaan idin sheegaya war anigu caan baan u ahay oo markaan caan noqonayay ayaan ku xisaabtamayay labo dad anigii aflagaadeeyay dad ay amaana balse haddii arinkan markasta ka hadlistiisa uu socdo sida xayawaankan oo kale YouTube ka kacaysayna soo lagu damanayo ay dadku uga hadlaan ayagoo iska soo hormarinaya magaca daarood iskana dhigaya inay aniga ii gafayaan wallahi aniga iima gafayaan gabadha walaashay ah ee sida sharafta leh aan ku kala tagnay
ixtiraamka iyo qadarinta ayaan weligeed iga hadlin anna aan ka hadlin ayay waxay ku tahay sharaf dhac hadda xayawaankan aad aragtaan ee magaca daarood sheeganaya ee iska dhigay inuu aniga ii gafayo aniga iima gafaye gabadha ayay sharaf dhac ku tahay uu u gafayaa soo waxa idin leeyahay dadka iska dhigaya beesha sharafta inay matalaan ee gabadha sharafta aynu ku kala tagnay sanad iyo bar ka hor aan arinkeeda dhigaynin ee everyday ka hadla anigu waxa idin leeyahay halkeeda ka sii wada wax dhibaato oo aniga ay ugu leedahay haba yaraatee ma jirto wax dhibaato ay aniga igu leedahay ama ay igu hayn doonto haba yaraatee ma jirto wax sharaf dhac ah ay aniga igu hayn doonto haddii aad ka sii hadashaanna ma jirto haddana iguma haynin oo anigu markasta waxaan ahay ayaa iga raacaya caayada lagu sheegayna caan baa u ah haddaan leecaayin boorin baaba dareemaaba waayo anigu waxaan ahay nin caan ah waan ku tashtaa in leecaayo in la amaano so guys sidaa darteed inta ayaan ku soo koobi doonaa oo waxaan leeyahay ka hadlista arinkan aan dhamaadka lahayn ee musalsalka ah haddii aad sii wadaan xitaa aniga wax dhibaato ay igu hayn doonto haba yaraatee ma jirto balse waxaan cadeynayaa hal mid taana waxay tahay anigu waxaan ahay nin business sameeya oo caan ah Soomaali oo dhan u baahan magaca hadda aan leeyahayna Soomaali oo dhan ayaa ku wasduugan daaroodna nolosheeda dhabta aniga aan ku noolahay dadka igu dhow way ka buuxaan daarood my best friends guryoodan wax ka cunaa kayga yimaadaan there is no way aan nacab u hayn karo hadda ayaana leeyahay anigu daarood waan jeclahay waa walaalahay waa ummad Soomaaliyeed lagamana yaabo in aan u naco laba qof oo meel soo fariistay oo aniga i caayay laba qof oo isku sheegay inay daarood matalaan oo aniga i caayay lagama yaabo magaca weyn ee sharafta leh oo ummadda islaamka ah ay ku hoosduugan yihiin beesha weyn ee sharafta leh ee daarood lagama yaabo inaan u naco laba qof oo iska caaytamay hadda ka horna waa idin sheegay haddana waa idin sheegaya yacni si kastaan u arko comment ku dhigle dhankiina ah si kastaan u arko xayawaan dhankiina ee iska soo hadlay lagama yaabo in aniga ay igeliso nacayb ka dhan ah beesha sharafta leh ee islaamka ah Soomaalida ah ee qadarinta iyo karaamada iga mudan one day inaan nacayb u qaado I love daarood ayaan sheekada ku soo xirayaa musalsalkan weligii dhamaan ha socdo balse qofka ay sharaf dhaca u tahay aniga ma aha waayo xayawaankan oo kala haduu everyday arinkan isku dayo inuu ka hadlo noocanna u hadlo YouTube ka kacaysanayo lagu la damanayo aniga sharaf dhac ugu ma hadda kan anigu waxaan aaminsanahay alkulistaan waxaan aaminsanahay inuusan aniga ii socon oo gabadha u socdo nabad Allah idin